war-saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa fariin dardaaran ah u dirtay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo biri dooranaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 40 sano ee soo socota. wakiilada beesha caalamka ayaa xildhibaanada kula dardaarmay inay damiirkooda kaashadaan oo waajibkooda dastuuriga ay u gutaan si madax bannaan iyadoo la joogo habeen ka horeeya doorashada madaxweynaha Soomaaliya. ayaa saaxiibada beesha caalamka waxay ugu baaqayaan dhammaan xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay waajibaadkooda dastuuriga u gutaan si ay ku jirto danta dalka ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa xildhibaanada uga baaqay inay codkooda siiyaan musharax samata bixin kara Soomaaliya. waxaan ku boorinaynaa xildhibaanada in ay codeeyaan damiirkooda iyagoo dooranaya musharax ay rumaysan yihiin inuu la imaanayo siyaasadda iyo tayada hogaamineed ee lagu horumarin karo nabadda iyo xasiloonida barwaaqada iyo dowladnimada suuban ee sanadaha soo socda ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. wakiilada beesha caalamka ayaa soo saaray qoraalkan ayaa Soomaaliya u kala jooga dalalka ururada kala ah howlgalka kala guurka ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee la soo gaabiyay ATMIS, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, ururka jaamacadda Carabta, Norway, ururka iskaashiga dalalka Islaamka, Qatar, Ruushka, Suudaan, Iswatiin, Switzerland, Turkiga, Uganda, Isutaga Imaaraadka Carabta, boqortooyada midoobay ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay.